wanaagsan oo wacan markale barnaamijkeena Excel ka waxaan arkaynaa assignment-ga lagu siiyay inta muddo ay ku hadhay sida loo kalkuleet karayaan caawa arkaynaa tusaale haddii maxaa la yiraahdaa assignment-ga koobaad lagu siiyay 2 October kii ka 29 September ka midterm test 1 ku iyo 29 September halka assignment 2 la submit garanayo uu yahay October 26 inta maalmood ee ku hadhay ama due date waxaan la yiraahdo due date la yiraahdo waqtigu ku eegyahay sida loo xisaabay aan caawan tusayaa kaasan caawa idin tusayaa marka due date-ka sida loo xisaabo waxaad oranaysaa equal to iyo leedahay taariikhda lagu siiyay aad click leedahay taariikhda markaa click tiraahdo minus iyo leedahay today yaad qoraysaa double click yaad leedahay bracket-ka yaad xidhaysaa kadib enter yaad leedahay enter markaa ka tiraahdid hoos yaad sidaa ugu soo jiidaysaa markaas test maxaa la yiraahdaa assignment 1 kaas waxa ka hadhay 5 maalmood ayaa ka hadhay marka maanta laga bilaabo sababtoo ah bisha October 2 ayaa la submit garaynaya maantana taariikhdu 27 maadaama ay sheegayso 5 maalmood ayaa ka hadhay bay ka dhigan tahay halka 29 September midterm test 1 ka uu ka yahay 2 maalmood kaliya tahay maanta maadaama 27 waa maalinka aad joogtid ayaa laga bilaabaya ilaa inta tir ahaan ku hadhay iyo ku soo dhigaya si numberka marka qaar taariikh uu kaaga noqon numberka koobaad ee dul tagaysaa markaad shaqaynaysid kadib halkan ayaa leedahay imika taariikh ahaan baad u bedelaysaa ama waqtiga maalin ahaan intuu noqonayo ayaad u bedelan karaysaa number buu imika yahay waxaad u bedeli karaysaa date ayaad u bedeli kartaa halkan date ayaad isku bedelaysaa kadib hoos ayaad soo jiidaysaa laakiinse number caadi inaad ka dhigatid baa fiican halkaas intaad soo gashid formatka intaad gashid number inaad ka dooratid iyo wanaagsan saas ayuu kuugu sheegaya aad iyo aad baad mahadsantihiin la socod wanaagsan